bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh aan xiliga kan idin hayno waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo dib magaalada Kismaayo ugu celisay xubno uu iska soo musaafiriyay Axmed Madoobe wararka ku saabsan maamulka Jubbaland iyo xiisada kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya waan eegi doonaa gudoomiyaha golaha shacabka oo si degdeg ah isugu yeeray xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Axmed Madoobe oo dhawaan lagu caleema saari doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose masuuragal baa in caleema saarkaasi uu mar kale baaqdo qorshaha ay ku hoolan tahay dawladda Soomaaliya waan idin haynaa wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo afka furtay weerarna ku qaaday madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo idaacad u iibiyay nin la dhashay Somaliland oo ku gacan saartay dalabkii ahaa in deegaanadeeda laga eriyo wakiilka jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Hargeysa warka ka soo baxay maamulka Somaliland waan idin haynaa qodobadan ayaad warkeena ku daawan doontaan daqiiqadaha soo-aadan haddii rabbi weynaha laga helo daawadyaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan channelka subscribe baa idin ahaado si aad u heshaan muuqaaladeena xiga haatan ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo dhan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Kismaayo dib ugu celisay ilaa 10 xubnood oo ka tirsan isbedel doonka Jubbaland kuwaasi oo maanta isla magaalada Kismaayo uu ka soo musaafiriyay Axmed Madoobe xubnahan oo kamid ah raggii magaalada Kismaayo ku doortay Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa magaalada Kismaayo waxa ka soo haajiriyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaasi oo si qasab ah Axmed Madoobe uu diyaarad ka soo saaray Kismaayo markii ay magaalada Muqdisho soo cagdhigatay diyaaradii ay la socdeen waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay amar ku bixisay in shakhsiyaadkaasi ay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo iyadoona diyaaradii keentay durba lagu amray in ay qaado xubnahaasi sidoo kale Kismaayo ay dib ugu laabteen shakhsiyaadkaas waxaana wararka intaas ay ku darayaan sida laga soo xigtay qaar kamid ah xubnaha isbedel doonka in lagu xabisay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose markii ay tageen halkaas oo loo diiday in ay u gudbaan gudaha magaalada Kismaayo raggan ka kooban ilaa 10 xubnood ayaa waxa imanka haysata laba daran mid dooro maadaama dhanka dawladda Soomaaliya ay ku gacan saartay halka maamulka Jubbaland uu ka soo musaafiriyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose arrimahan oo dhan waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo khilaaf xoogan oo wali u dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo Axmed Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa degdeg isugu yeeray xildhibaanada si ay ugu soo qayb galaan furitaanka kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiye Maxamed Mursal ayaa lagu wargeliyay dhammaan xildhibaanada golaha shacabka inay ka soo qayb galaan furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo la furayo 9ka bishan aan ku guda jirno ee October sanadka 2019 kuna beegan maalinta Arbacada ee toddobaadkan xildhibaanada baarlamaanka ayaa la faray inay ugu dambeyn dalka ku soo laabtaan 7 bisha October oo ku beegan maalinta Isniinta gudoomiye Maxamed Mursal ayaa qoraalkiisa ku adkeeyay in muhiim ay tahay xildhibaanada inay soo xaadiraan kulamada golaha shacabka sida shaqooyinka adag ee horyaala golaha shacabka loo sii socodsiiyo kala fadhiga lixaad ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa furitaankiisa waxa uu ku beegnaa 27 bishii aynu ka soo gudubnay ee September ee sanadkan 2019 balse dib ayuu uga dhacay xilligaasi xildhibaanada golaha shacabka ayaa fasax galay bishii 7aad ee sanadkan waxaana haatan xildhibaanada ay dib u sii wadan doonaan shaqooyinkooda ku aadan howlaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa waajib ku ah qabashada ama gudashada 3 shaqo oo kala ah matalaada shacabka la xisaabtanka xukuumadda sameynta sharciyada iyo wax ka bedelka sharciga caleema saarka madaxweynaha maamulka Jubbaland ee la sheegay in uu kaligiis isku doortay magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisa uu ka dhaco isla magaaladaasi xilli uu dib u dhacay 23kii ee bishii hore aan ka soo gudubnay ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta u sheegay in caleema saarka Axmed Madoobe uu ku beegan yahay 9ka bishan October ee sanadka 2019 wararka ayaa intaas ugu daraya ciidamada ammaanka Jubbaland ay magaalada Kismaayo ka bilaabeen howlgal ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaaladaasi xafladda caleema saarka hogaamiyaha lagu eedeeyo in kaliya isku doortay magaalada Kismaayo ee Axmed Madoobe ayaa lagu casuumay qaar kamid ah madaxdii hore ee dalka soo martay sida Shariif Xasan Sheekh
inkastoo aan la ogeyn sida uu qaybgeli doonaan caleemasaarkaasi. sidoo kale maamulka Somaliland ayaa dhawaan shaacisay in wafdi ay u dirayso caleemasaarka Axmed Madoobe kuwaasoo isugu jira xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan deegaanada Somaliland. warar kale ayaa sheegaya in laga cabsi qabo caleemasaarka Axmed Madoobe in uu dib u baaqdo mar kale. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u baajisay caleemasaarkii Axmed Madoobe. dhinaca kale magaalada Kismaayo maanta waxaa gaaray diyaarad siday madaxweynayaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug kuwaasoo ay weheliyeen ku dhawaad 30 xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo xubnahaasi ay weheliyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka. halkaasi waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyadoona loo galbiyay xarunta nasiinada ee maamulka Jubbaland ee ku taal magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. xubnahaasi ayaa la sheegay inay ka qayb gali doonaan caleemasaarka Axmed Madoobe waxaana Kismaayo ay ku tageen diyaarad maamulka Jubbaland ay soo iibsatay taas oo loogu talagalay inay daabusho wafuudda ka qayb galaysa caleemasaarka Axmed Madoobe oo lagu muransan yahay. madaxweyne Farmaajo waxaa la sheegay in walaalkii uu idaacad uga furay magaalada Muqdisho. Xasan Cabdullaahi Farmaajo oo loo yaqaan Xasan Nuur alana dhashay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iibsaday idaacadda Sky FM ee magaalada Muqdisho sida ilo wareediyo oo lagu kalsoonaan karo warbaahinta qaar ay u xaqiijiyeen. Xasan Nuur ayaa markii uu iibsaday idaacadda Sky FM waxa uu bedelay durba magacii idaacaddaasi waxaana uu bixiyay Sareeye FM iyada oo sidoo kalena isbedel lagu sameeyay hab hawleedkii siyaasadeed ee idaacaddaasi. idaacadan lagu magacaabo Sareeye FM ayaa wali ka soo gasha mawjadii hore ee Sky FM 87.5 MHz. ila wareedina waxay xaqiijinayaan in ujeedka idaacadan ay tahay ololaha doorashooyinka 2020 ilaa 2021 in madaxweyne Farmaajo campaign loogu qabto. iibsashada idaacadda ayaa muujinaysa isbedel dhanka xaaladda warbaahinta ah oo ay qaadeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhinaca kale Xasan Nuur ayaa dhawaan kireeyay 2 guri oo mid uu ku agyaal Hotel Jazeera halka midka kalena uu yahay gurigii hore loogu wada jiray ololaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo. guriyahan ayaa waxaa laga shaqo geliyay dhalinyaro qaarkood dibadda ka yimid kuwaasi oo maamula tabaneeyo Facebook isla markaana sameeya muuqaalo iyo qoraalo siyaasadeed oo lagu amaanayo madaxda qaranka. wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo ka qayb galay barnaamij dood ah oo lagu falanqeynayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ayaa si aad ah u dhaliilay qaabka siyaasadeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Daahir Geelle ayaa ka sheekeeyay dhacdooyinkii dhexmaray isaga iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxda ugu sareysa dowladda waxaana uu sheegay in fikradiisa siyaasi uu u gudbin jiray madaxda dowladda Soomaaliya balse aysan ka qaadan jirin. mar wax laga weydiiyay go'aanadii ugu xasaasiga badnaa ee dowladda qaadatay iyo haddii ay jiraan qaladaad ay gashay dowladdii uu horay uga tirsanaa gaar ahaan dhacdooyinkii kala ahaa weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo tallaabadii ee diyaaradda looga xiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayuu xusay inuusan la dhacsaneen in la qaado tallaabooyinkaasi. waxa uu sheegay in uu jeclaan lahaa in madaxweynaha Soomaaliya uu maqaam dhooro madaxweynayaashii hore ee isaga ku horeeyay waxaana uu xusay in madaxweyne Farmaajo markuu xilka ka dego sida uu jeclaan lahaa in loola dhaqmo. waxaana uu tilmaamay Daahir Maxamuud Geelle in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilliga kan looga baahan yahay inuu maadaama uusan jeclaan lahayn in si xun lala dhaqmo. sidoo kale mar uu ka hadlayay dhacdadii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu tilmaamay inay ahayd haddii ay jirto qalad la galay oo dhacdo dhabar jab ah laga soo bilaabay xilligii Carte laguna soo doortay Cabdiqaasim Salaad ay ahayd tii ugu weyneed ee dhacda. weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu abuuri karaa dhacdo ugub ah wuxuu abuuri karaa xurmad daro ku timaada siyaasiga Soomaaliga ah haddii uu xilka ka dego. madaxda hadda la bisan ee xilka joogta haddii ay xilka ka degaan waxaa la rabaa inay noqdaan lama taabtaan. ma rabin in hay'adaha nabadgelyada in la baro inay siyaasiga gaadaan laakiin waxaa rajaynayaa inay noqoto dhacdo soo noqoto ah oo mar dambe aanay dhicin. sidaas waxa yiri Daahir Maxamuud Geelle. siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle ayaa soo noqday wasiirkii wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya
waxaana uu xilkaasi iska casilay bartamihii sanadkan 2019 xilli uu sheegay inuu la shaqayn waayay madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya. xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyay Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta markii ugu horeysay ka jawaabtay baaqyo kala duwan oo ka soo baxay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah iyo xildhibaano kale oo ka tirsan maamulka Somaliland. Somaliland ayaa gabi ahaanba ku gacan saartay dalabkii loogu soo jeediyay in deegaanadeeda laga eriyo wakiilka u jooga Jamhuuriyadda Djibouti Somaliland kaas oo xisbiga u cud muddo dhan 24 saac gudahood in looga saaro Somaliland. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay dacwadda wakiilka Djibouti oo fadhiya Somaliland lagu sheegay in uu ka gudbiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucud. wasiir Faratoon waxa kale oo dalka Djibouti ka difaacay eedeymo ay u soo jeediyeen mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga ucud kaas oo ay ku sheegeen in dowladda Djibouti ay tahay cadowga koowaad ee Somaliland. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri haba yaraatee wax dacwad ah oo ka dhan Faysal nooma soo gudbin wakiilka Jamhuuriyadda Djibouti ee Somaliland. xiisada u dhaxaysa Faysal Cali Waraabe iyo wakiilka Djibouti ee Somaliland ayaa salka ku haysa markii uu Faysal Cali Waraabe kol hore sheegay in Somaliland aysan dhexdhexaad ka ahayn wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland, halka wakiilka Jamhuuriyadda Djibouti uu arintaasi beeniyay isla markaana sheegay Faysal Cali Waraabe inuu yahay balaayo ka dhex taagan Somaliland iyo Djibouti una baahan yahay xitaa in xirsi loo xiro. warkii oo aad kala socoteen channelka wararka dunida saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan xilliga kan waa naga intaa daawashada wacan ee warkeena waa aad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.